xariif kan wuxuu soo galay shil waxaan la keenay isbitaalkaani waxaan la joogay dhakhtarkiisa markaas wuxuu qodhaa oo ma soo kacday markaas uu sheegay xaaskiisa in la wargeliyo inuu galay shil markaas ayuu isagana yaabay wuxuu isdhahayaa xaas wuxuuna weydiinayaa qofka uu diray fariinta dhakhtarkan wuxuu sheegay kontaktigiisa inuu ka fiiriyay maylo una soo baxeen 5 nambaro 5 nambar message uu wada diray taasi anigu waxaan gala shiliyay ma kadib ninka uu yaabay waxaan umaanaysaa gabadhaan ayadoo ku dhees ahla sidee tahay isagana wuxuu ku jawaabay fiican markaas uu ku dhahay iska bax gurigaaga aad intaysan bixin mid kale imaanaysa soo caras waxaan ku leeyahay sidee tahay kadibna mid ku imaanaysa xanaaqis waxaan ku leeyahay adiga kuma tahay waxaan sheegaysaa inay tahay gacleheeda isagana uu suuxinayaaba kadib ay xiraan Allah uu dhintay ninka maxaa ku dhacay dhakhtarkan wuxuu dhahay mashiinka ayuu dimiyay ninka uu nool yahay xariifku xanaaqay wuxuu dhahay adiga maxaa ka qaldan runtaad u sheegaysaa gabdhihi ayaan ku dhahay adiga ma laba gabdhood ay xiriir la leedahay intuusan hadalka dhamaanba mid saddexaad soo caras waxaan ku leeyahay Allah sidee tahay baby markaas ayuu isagana ismudadaalina gabdhahan waxay dhahan adigana magacal sidii cusub ayaa tahay wadan ku dhees gabdhahan waxay ku hadlaan khafiifo tan waxay dhees khafiifo qofkan khafiifo lama dhahay waxa la guumo tan saddexaad soo booyay ayadan waxay dhees guumo lama dhahay waxa la maartiin kadibna dhakhtarka soo booday wuxuu dhahay ninkan waxa lagu magacaabaa Zaak kadib ayuu wuxuu dhahay dhamaan magacaadaas aniga lagu magacaab dhakhtarka soo booday wuxuu ku dhahay aniga xataa ma beenaya tii sheegtay kadibna laga roonaanay soo galay isagoo ku qeelinay my bani isagoo wali buu siraacnay ma fiican tahay sidee tahay xaaladaada ka waran gabdhiin ayaaban waxaan dhahay adiga ninkan maxaa ka dhaxay markaas xariifku wuxuu dhahay waan ku caajisay gabdhaha markaas aan raadiyo si aan u shukaansado markaas dhakhtarku dhahay adiga maalintan xataa xiriir miyaad la sameynaysaa dhayan ku dhahan waxa maleeyaa ninkan inayna saaxiibo ama walaalo bal qowga ku qalna gabdhan ma saaxiibada ba maxay yihiin markaas ayagana waxa dhahay anaga waxa naga dhaxay xiriir markaas qaniisku wuxuu qalna xiriir markaas uu dhahay adiga waxa sheegtay inaad tahay bal qow kale gabdhan waxa dhahan anaga ay habna ninkan waa nin rag oo nala seexay dhakhtarka wuxuu dhahay adiga wax kale ka qaldan maxaa ku dhacay dib qoftu dambeeyay soo galaysa iyadoo wali ku qalnaysa waa taqiyantay wax walba aad ugu sameysay waxaad ku qortay nambarkayga maylo dhakhtarkan wuxuu weydiinay qoftan jecelkiisa lahaat inay tahay kadibna dhamaan gabdhii waa darbaaxa waxaan ku dhahay anaga dhan waad naqayantay naga tag ayagoo idil waxay sameeyaan darbaaxshay wada dhufanayaan isaga ayagoo waliba ka tagaya xitaa balaqooyo waxnaaqay uu darbaaxay oo si tagaya kadibna dhakhtarkii wuxuu wacay neersinkii isagoo waliba dhahay ninkan hala caabi halo yimaad markaas balaqoogu soo laabanay wuxuu soo qaadanay ubixiisa wuxuu dhibay dhakhtarka wuxuu ku dhahayaa isoo wac dhakhtarkiina uu yaaba indhaha ayuu taagayaaba markaas ayuu xariif magac badna isagana iska yaabay wuxuu dhahay qoftani maxaa ka qaldan kadib ay loo sidaas ku sheekaysanaan waxayna isdhaan sidaas uu ku dhamaaday xiriirkii layaabka badnaa dhakhtarkan wuxuu ku dhahay adiga caadi ma tiid qof walba xiriir miyaad la sameynaysaa isagana wuxuu sheegayaa siduu jirkiisa u weyn oo kale qalbigiisa inuu weyn qof walba uu soo dhaweenayo markaas uu dhahay magacadooda Mylof waxa uu saf gareystay ma xasuusan karo markaas uu sheegay gabadha dharbaaxaysa in lagu magacaabo Angelo kaliya inuu xasuusan karo magaceeda